halkan waa tuulada Moyko waxa ay 2 kiiloomitir u jirtaa magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle dalagii ku yaalay ee tabcanayeen dadka ku dhaqan tuulada Moyko ayaa waxa baabi'iyay ama gooyay siimooga wabiga iyo roobabkii dhawaan ka daay magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle dadka ku dhaqan tuulada Moyko ayaa waxa ay dawlad goboleedka Hirshabelle iyo dawladda dhexe ka codsadeen in ay la soo gaaraan gargaar bini aadanimo dadkani ayaa waxa ay sheegeen in dhawaan ay ka soo kabsanayeen abaarihii ku dhuftay gudaha dalka Soomaaliya iyaga oo sheegay in beerahooda ay u dhawaayeen kadibna uu jaray siimowga wabiga waa kuwan gudoomiyaha iyo dadka tuulada degan oo ka warbixinaya arintaasi 500 hektar waaye oo diir galey yaanyo oo qudaar kale leh waa jirtaa intaas waa naga go'een waxaan codsanaa maamulka waxaan ka codsanaynaa in meesh beerahan sidin ku tacbalahan falkeeda la galo ayaa abuur iyo meeshan maanta ba hadda waxa waaye hay'adaha noo timidaan beeraha ku falnay abaar dheeraan soo marnay oo biiwayta jirti kadib waxaan maleynaa muddo 10 bilood waxaan maleynaa hay'adan ordan la leeyahay inaan ma aragti gacanta naga qabatay oo wax nuu siinaysa saasaan beeraha ku falnay hadda beeriina waa kuwan waa naga go'een xaaladda aan hadda aan ku dhex jirno xaalad markaas oo xun ama ahayn oo kale oo waxaan weligeena arkinba aan aragnay ayaan xaaladdeeda ku dhex jirnaay waxaana aragnay tuuladii Moyko ahayd daladii ka baxday oo maanta lagu oofabeelay oo haddaan beerta barkiita haddii la dhex tago oo ilmaha ka dhargaayiin ayaa maanta aana qabsatay inay wixii baaba'aan biyo madow noo yimideen halahaan roobka aas ka yimid tuulada ilaa Saaluklaabe waa isku xiran yihiin biyaha oo balka dhex yaal biyaha balka halaha oo gooyeegne waxaan ku xisaabnay iyadoo hadda beerihii korona ay dhiman yihiin oo haddaan waxay ku sugan yihiin ilaahay aas ogyahay laakiin laamiga wixii ka bari waxaan ku qiyaasnay 500 hektar oo beeran oo ku beeran dalad ka bilaabanayso galey digir sisin yaanyo basal intaas ayaa ku beeran marka hadda intii ida ahaydna waxaan u maleynaa hadda beer la dhex tagaayo oo wax laga soo qabsanayo ma jiraan biyaha waxay u fuulaan maxoga waxaana rabnaa marka tuuladaas Moyko la yiraahdo oo in u dhow gobolka u jirto maxayraan u soo 2 kiilo oo mitir oo u jirto intaas ayaa ku gabsootay waxaan sajalnaa hadda intii markaas oo joogta adduunyada korkeeda oo intii Soomaali oo gacanteeda ay koreysay oo wax u soo qodaraysay waxaan jecelnahay inay wax ka qabtaan waxna ay ka arkaan waayo daladii la tacbay ilmihii loo tacbina waa joogaan waalidkii loo tacbina waa joogaan duq iyo camoole waa joogaan intii loo tacbayna hadda lama hayo wixii dhulka ay wada galeen oo waa go'een haddana waxaan jecelnahay in laga soo gaaro abuurna aan helno maxay yiraahdeen isaga wixii lagu tacbayna aan helno daadadkan ayaa waxay imaanayaan xilli gobolka Shabeellaha Dhexe qaasatan magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle uu ka curtay roobabkii beerta iyadoo dhibaato xooggan u geystay beeraha ku yaala magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabelle qaasatan tuulada Moyko Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa TV-ga caalamiga ee Saab magaalada Jowhar